Gaza xaaladdu markaan way ka sii daraysaa waxayna maraysaa dadkii shacabka ahaa ee reer Gaza inay u dhimanayaan qabowga Ilaahay uu keenay marka laga yimaado rasaasta ciidanka Israa'iil ay ku dilayaan sida xaalka Gaza hadda yahay xaaladii u dambeeyay ayaan daawadeel barnaamijkan kaga hadli doonaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Syria xaalada ka soo cusboonaaday dhankeeda Ukraine iyo Syria laftigooda oo wada hadal u soconayo barnaamijka ayaan daawadeel intaan kaga hadli doonaa ee mar kale ku soo dhaw Caalamiyada 24 haddii aad nagu cusub tahay Facebook page-keena follow node saas la mid ah YouTube-keena subscribe noo saar bulsho badan si aan u gaarno like iyo share noo saar maasanid ku bilownaa xaaladda magaalada Gaza oo muddo 15 bilood ka badan dagaalo xooggan ay ka soconayaan inta badanna magaaladii la burburiyay dadka shacabka ay dhintana tiradooda ay cirkas ku sii shareerayso sidaas la mid ah ciidanka Israa'iil ay isbitaaladii ay gubayaan ayaa waxaa hadda ka soo baxaysa xaalad kale oo aad qoys ah caalamkana loogu baaqayo inuu wax ka qabto xaaladda magaalada Gaza oo horeba loo ogaa in dhibaato xooggan ay ka taagneyd biyihiina laga jaray koronto laga jaray sidoo kale deegaanadii laga baabaashay shacabka Falastiiniyiinta cuntana Israa'iil ay u diiday mararka qaar waxyaabo aad u kooban oo soo gala ama kor looga soo tuuro mooyee ayaa hadda waxaa la soo sheegayaa in dad fara badan ay ugu geeriyoodeen qabow daran oo xilligan ka taagan magaalada Gaza sida warbaahinta ay sheegayaan in ka badan 7 qofood ayaa saacadii u dambeeyay ku geeriyooday gudaha magaaladaasi Gaza waxaa la sheegay 6 carruur inay ku jiraan dadkaasi geeriyooday oo kuwa bila joogay ama hadda dhulashay ku jiraan sababtay u geeriyoodeen waxaa la sheegay qabow daran oo magaaladaasi ka daaya deegaano badan oo Gaza ka mid ah sidoo kale waxaa ka daaya roobab xooggan kuwaas oo la sheegay inay ku soo rogeen meelaha qaarkood daadad deegaanadii dadku ay deganaayeen ee cooshadaha ka samaysnaana la deganaan waayay taasina dadka ay dib u sii barakicisay maamulka magaalada Gaza oo ururka Hamas hoostaga iyo wasaaradda caafimaadka deegaankaasi Gaza ka shaqeysa ayaa baaq u diray caalamka iyagoo ka dalbanaya in faragelin lagu sameeyo waxa ka taagan hadda magaalada Gaza shacabkii oo u dhimanaya biyo la'aan iyo si la mid ah cunto la'aan ayaa hadda waxaa ugu darsantay in qabow darani u haysto meel ay ka galaan aysan hadda heli karin deegaanka yar oo isugu yimaadaan dad aad u yarna waxaa la sheegay inay duqeymo xooggan la beegsanayaan ciidanka Israa'iil haddii dadku shidaal ay heli lahaayeen deegaankana koronto ay ka jiri lahayd waxaa jiri lahaa dadku inay kululeysooyin iyo wixii loo isticmaalo qabowgan laga gabadsado ay shidan lahaayeen ama haddii deegaanka meelo nabad qabta laga heli lahaa dadku guryo ay ka geli lahaayeen qabowgaasi daran hase haatee carruurtii bannaanka ay yaalaan wax lagu kululeeyo ama sidoo kale bustayaal huuyana lama heli karayo deegaan nadiif oo ay ku hoydaan roobka daaya biyaha ka dhasha ee meelaha balliyada ama godadka isugu yimaada ayaa cabitaan u noqotay dadka Gaza waxaana la sheegay in biyahaas ay yihiin biyo wasaqaysan oo hubka kiimikada Israa'iil ay ku garaacayso haraadigiisa uu ka buuxo waxayna keeni kartaa caafimaad darro kale in deegaankaas ay ka dhalato horey waxaa looga helay xaalado caafimaad ay ka mid tahay dabaysha iyadoo carruurtii talaal lagu wadana Israa'iil mar kale waxay soo celisay duulaanka iyo duqeymaha ay ku hayso xaaladaha isbitaalada sidoo kale waa laga dayrinayaa oo isbitaalada dadkii ku jiray dhaawacyada ahaa ciidanka Israa'iil waa ay ku laayeen sidoo kale tan dhaqaatiirtii waa ay afduubteen isbitaaladiina waa ay gubeen isbitaalka Kamal Adwan ayaa ka mid ah meelihii ugu dambeeyay oo dhibaatadaas xooggan laga geystay oo kalkaaliyaashii iyo si la mid ah agaasimihii isbitaalka iyo dhaqaatiirtiiba la kaxaysta qaarna la dilay qaar yar oo ka badbaaday oo kalkaaliyaashii shaqaalaha ka mid ah iyo dadka dhaawacyada ah waxay sheegeen faraxumayn iyo dhibaatooyin ay u geysteen ciidanka Israa'iil kuwaas oo warbaahinta ay la wadaageen qayb ka mid ah warbaahintuna ay soo tabiyeen isbitaalka Kamal Adwan agaasimaheedii Xuseen Abu Safiya waxay si ay sheegayaan in lagu hayo meel kaam ciidanka Israa'iil ay degan yihiin oo saldhig military halkaas ciidanka Israa'iil ay ku hayaan waxaa ugu daran xaaladda qabowga ee hadda ka taagan oo shacabka Falastiiniyiinta ee halkaas ku nool ay u dhimanayaan waxaana wadamada muslimiinta iyo caalamka ay ka dalbanayaan shacabka Falastiiniyiinta in xilligan gargaar lala gaaro si ay u suurto gasho in la caymiyo dadka masaakiinta ee hadda ku dhimanaya qabowgan uu ku dilayo gudaha magaalada Gaza dhanka kale Syria haddii aan aadno waxaa la sheegayaa dagaalo inay ka jiraan waqooyiga dalka Syria wararku waxay sheegayaan maalintii Axad ahayd dagaalo qaraar oo ka dhacay dalka Syria gaar ahaan waqooyiga oo na dhaxeeya qaar ka mid ah jabhadaha dalka Syria ee askar badan oo jabhadaha ka mid ay ku dhinteen
dagaalka xooggan ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo laba jabhadood oo ah midda hadda talada dalka Syria la wareegtay Hayat Tahrir al-Sham iyo sidoo kaleeto jabhadda Kurdiyiinta SDF ee Mareykanku u taageero qaybo ka mid ah gobollada Waqooyiga gacanta ku haysa. kooxda SDF garab ka mid oo garabka ugu xooggan oo la yaqaan YPG waxaa la sheegay Turkigu inuu u yaqaan urur argagixiso uuna doonayo in howlgal military uu ka soo qaaday gudaha Turkiga halkaana laga fuliyo. hadda waxaa soconaya dagaalkaas u dhexeeya Kurdiyiinta iyo kooxda kale Sunniga ee hadda la wareegay talada dalka Syria ee uu hogaamiyo Abu Muhammad al-Jawlani ama Ahmed al-Sharaa. Turkiga oo taageera kooxdan hadda talada la wareegtay qorshihiisa inuu weeraro deegaanada kooxda Kurdiyiinta ay ku sugan yihiin sidoo kale tan Mareykanku u taageero. waxaa la sheegay hore in Mareykanku uu hakiyay duulaankii u damacsanaa dalka Turkiga hase haatee maadaama uu bilowday dagaal u dhexeeya labada jabhadood waxay taasi fududayn kartaa in Turkigu sidoo kale uu qayb ka noqdo duulaankaas kooxda Hayat Tahrir al-Sham ay ka wadaan gudaha dalka Suuriya gaar ahaan gobollada Waqooyi ay ku sugan yihiin kooxda Kurdiyiinta. dhan kale wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa booqasho ku yimid gudaha dalka Syria isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ku-meelgaarka dalkaasi iyo si la mid ah hogaamiyaha ku-meelgaarka Ahmed al-Sharaa inay ka wada hadleen xiriirka labada dowladood. warar soo baxay ayaa sheegaya in laga arrinsanayo sidii xiriir istiraatiiji ah oo muhiim ay u wada yeelan lahaayeen dowladaha Syria iyo Ukraine dagaal ayaa ka socda oo Ruushka ayaa dagaal ku haya. dhanka kale Syria waxaa laga saaray xukunkii Bashar al-Assad oo Ruushka laftigiisa uu taageerayay. labada dowladoodba ama labada wadanba waa laba wadan oo Ruushka uu saameyn ku leeyahay. midna hadda dagaal ayaa ka socda midna shacabka Suuriya aad u xasuuqa Ruushka waxaana hadda meesha ka baxay xukuumaddii uu taageerayay sidoo kale tasalliyadii waaweynaa uu ku lahaa dalkaasi weli waa ku sugan yahay inkastoo la sheego hubkiisii xoogganaa inuu ka qaatay qaybo ka mid ah in deegaano kale oo Afrika ay ka mid tahay sida dalka Libyana uu u wareejiyay. xiriirka cusub ee hadda ay onkayaan labadan dowladood ma noqon doono xiriir xooggan oo saameyn Ruushka ku yeelan kara maadaama Syria aanay ahayn xukuumad ama dowlad xooggan oo saameyn ku yeelan karta arrimaha dalka Ukraine. dhan kale xabad joojintii la filayay Trump inuu dhexdhexaadiyo ama garwadeen ka noqdo ee Ruushka iyo Ukraine dhankeedan warar ayaa ka soo baxaya hase haatee wararkaas barnaamijyo gaar ah ayaan ka soo samayn doonaa iyo xaaladdu halka ay marayso.